waxaynu ilaahay idinkiis kelmado kooban ka oranaynaa inagoo aan badinayn salaada iyo ahmiyadda ay leedahay oo ay u leedahay qofka muslimka ah noloshiisa ayaynu insha allahu tacaala isxasuusinaynaa. salaadu sidaad ogtihiinba walaalayaal waa tiirka labaad ee diinta islaamka, arkaanta ay ku taagan tahay. qofku markuu ashahaato oo uu islaamo, camalka koowaad ee laga rabaa waa salaada. nabigeenuna sala allahu calayhi wasalama waxa uu inoo sheegay sidoo kale qofku marka uu dhinto oo uu aakhiro tago, ilaahay la hortago subxaanahu wa tacaala, camalka u horeeya ee laga xisaabin doonaa in uu noqonayo salaada. haddii ay salaadiisu hagaagto oo uu ahlu salaad ahaayo salaada uu ilaalin jiray ee uu sidii ay ahayd u tukan jiray, axkaamteeda iyo cilmigeedana uu si fiican u hayay awna ku dhaqmi jiray, nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkaasi qad aflaxa wa anjaxa, waa qof liibaanay oo guulaystay ayuu noqonaya. haddii ay salaadiisii xumaato, laba mid bay noqon kartaa inay xumaato inuu tukan jiray laakiin uusan aqoon oo bawsi iyo aqoon darri uu ku tukan jiray, iyo inuu base salaada dafaraha ka qaaday ciyaadan billaah. haddii ay salaadiisii ay hagaagi weydo, qofkaas isagana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qad khaaba wa khasir, qofkaasi qof hoogay ayuu noqonaya. nabigeena sala allahu calayhi wasalama isagoo ka hadlaya ahmiyadda salaada ayaa waxa uu inoo sheegay qof aan salaad la imaan oo aan salaada ilaalin oo aan salaada tukanin inuusan islaamka waxba ku lahayn. marka insha allahu tacaala qodobo kooban oo ku saabsan ahmiyadda ay salaadu leedahay iyo shareecadeena islaamka meeshay ka joogto ayaynu ilaahay idinkiis isxasuusinaynaa. kow waxa weeye, sidaan horey u xusnay, salaadu waa tiirarka islaamka kuwa ugu muhiimsan bay ku jirtaa, ama ayada ayaa u muhiimsan marka laga tago shahaadateynka, oo yacni qofku inuu qiro ilaahay mooye alla kale oo xaq lagu caabudaa inuusan jirin, nebi maxamedna uu yahay rasuul alla soo dirsaday sala allahu calayhi wasalam. markuu qiro qofku uu ashahaato xerada islaamka uu soo galo, waxa u horeeya ee laga doonayaa salaadii ama rukniga labaadi ayuu noqonayaa. mucaad ibnu jabal ayaa nebigu wuxuu u diray yaman oo uu dacwada iyo diinta inuu xambaaro oo reer yamaneed gaarsiiyo ayaa nebigu u diray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi markuu la dardaarmayay, mucaadow waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaab ah oo dadkii diimihii hore ee la siiyey ka mid ah. waxa u horeeya ee aad ugu yeeri doontid ha noqoto ilaa an yuwaxidu allaha tacaala, ilaahay inay keli yeelaan oo ay keligiis caabudaan oo ay shahaadada xaqaa qiraan. waxa u horeeya oo aad ugu yeeraysaa ha noqoto, waa meesha dacwada laga bilaabayo. hadday taa kaa yeelaan oo ay taa gartaan oo ay ashahaataan, waxaad u sheegtaa ana allaha farada calayhim 5 salawaatin fii yowmihim wa laylatihim, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku waajib yeelay habeenkooda iyo maalintooda 5 salaadood in lagu waajib yeelay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doonayo. sidaa u sheeg. marka waxaa xadiisku inoo sheegayaa yacni qofku marka uu islaamka soo galo uu ashahaato, waxa koowaad oo laga rabo tirka labaadi inuu yahay inuu salaada ilaaliyo. qodobka labaad oo ina tusaya ahmiyadda salaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray inaan ilaalino xaalad walbo aan ku sugannahay oo nolosheena ka mid ah, inaynu salaadii ilaalino
ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ina faraya qofku hadduu negi yahay salaadii waa laga rabaa, hadduu safar yahay salaadii waa laga rabaa, haddii uu ammaan haysto oo uusan dagaal ku jirin salaadii waa laga doonayaa, haddii uu dagaal ku jiro oo xaaladaha xarbiga iyo dagaalka uu ku jiro salaadii waa laga rabaa oo laga daynmayo, haddii uu caafimaad qabo oo uu fiican yahay salaadii waa laga doonayaa, haddii uu xanuunsan yahay iyadana salaadii waa laga rabaa. qofka sina muslimka inta maskaxdiisu joogto oo uu qalbigiisu yacnihi ay maskaxdiisu taam yahay, caqligiisu salaad waa laga doonayaa. waxaan baraarujinaynaa mararka qaybtood dadku markay xanuunsadaan oo waxoogaa xanuunka ku cuslaado salaada inay iska daayaan, oo markaad isbitaallada tagtid dadka xanuunsan oo isbitaalka yaal yacni salaad in badan oo ka mid ah qofka waa xanuunsan yahay faraha laga qaadaya. arrintaas arrin saxa maahan. qofka xaaladda maskaxdiisu sida uu awoodiisa ugu tukanaya, laakiin caqligiisu inta uu joogo salaada waa laga doonayaa. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa waquumuu lillahi qaanitiin. allah waxau leeyahay subxaanahu wa tacaala salaadaha ilaaliya oo xifdiya. salaada dhexe oo ay culimmadu ku tilmaameen inay tahay salaada casarka iyadana ilaaliya. waquumuu lillahi qaanitiin. ilaahayna subxaanahu wa tacaala markaad istaagaysaan hortiisa oo aad salaada tukanaysaan idinkoo alla subxaanahu wa tacaala ateecaya alla subxaanahu wa tacaala u istaaga. markaas alla wuxuu ka sheekeeyey xaaladii dagaalka lagu jiray ee cabsidu jirtay ee ciidanka muslimka iyo gaaladu ay isdhex galeen ee jihaadka lagu jiray, xataa markaas iyada ah in salaadii la tukanayo sida markaas ay kuugu fududaato aa u tukan kartidna farijaalan aw rukbaana, idinkoo soconaya oo dagaalamaya salaada tukanaysaan, idinkoo gaadiidka saaran baad tukanaysaan, idinkoo lugaynayaad baad salaada tukanaysaan. sidaas ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamayaa wey. sidoo kale saxaabigii cimraan ibni xusein ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi waa xanuunsanahay rasuul ilaahayow oo salaada yacni ma tukan karo, ayaa nebigu wuxuu dardaarmay sala allahu calayhi wasalama. wuxuu yidhi salli qaa'iman, salaada adoo taagan tuko, fain lam tastadic faqaacida, haddaadan istaagi karin oo aadan awood istaagu lahaynna adigoo fadhiya ayaa tukanaysaa, haddaadan fadhigana kari karinna facalaa janbin, adoo jiifa ayaad la imaanaysaa weeye. nusuustaas waxay inoo sheegaysaa marka salaada sinaba inaan qofku uusan uga tegayn, xaalad walba uu ku sugan yahay in salaadii laga doonayo ayaa uuna faraysaa wey. qodobka saddexaad ee ka mid ah salaadu ahmiyadda ay leedahay walaalayaal waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii u dhameeyey oo uu inoo dardaarmo markii ay geeridu ku soo xaadirtay oo uu xanuunsanayey oo xaaladiisu aad u cuslaatay. dardaarankii uu markaas dardaarmayey nebigu sala allahu calayhi wasalama ayaa ay salaadu ka mid ahayd. hadalladii u dhameeyey ee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama uu inoo dardaarmay waxaa ka mid ahaa assalaa wamaa malakat aymaanukum, war hooy salaada ilaaliya iyo waxa ay gacmihiinnu hanteen ee aad mas-uulka ka tihiin ilaaliya baa rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam. qodobka afraad waxa weeye walaalayaal, salaadu waa dhaqankii ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray iyo rusushii alla subxaanahu wa tacaala uu soo diray, dhaqankoodii iyo da'bigoodii salaada ayaa ka mid ahayd. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekeeyey ambiyadii ilaahay qayb ka mid ah ayaa ilaahay ka soo qisooday oo ka soo warramay kitaabka qur-aanka kariimka ah. kadibna maxaa lagu gabagabeeyey ammaantii alla jeediyey, wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraat wa iqaama asalaa wa iitaa'a azakaa. waxa aan u waxyoonnay in ay la yimaadaan oo ay maaragta sameeyaan samaynta khayraadka, waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay ee wanaagsan, iyo wa iqaami salaa, salaada in ay toosiyaan oo ay salaada ilaaliyaan
ayaan u waxyoonay iyo wa iitaa'i zakaa sakada inay bixiyaan marka waxyaalihii ilaahay uu dardaarmay ambiyadaas in ay sameeyaan oo ay ku dadaalaan waxaa ka mid ahaa in ay salaada sida ay tahay ula yimaadaan oo ay salaada markaas iyada toosiyaan